kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiiba saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa waxyaabaha kuu sahlaya inaad shaqo hesho ma tahay bilaa camal ama dhowaan ma soo qalin jebisay shaqana ma heli laadahay ma bilowda inaad ka warwarto oo aad ka fikirto mustaqbalkaaga ma ka cabsanaysaa in camal la'aanta baahsan ee waddanka ka jirta ay saamayn kugu yeelato haddaba waxaan muuqaalkan kugula wadaagi doonaa talooyin muhiim ah islamarkaana kaa caawin doona sidii aad shaqo u heli lahayd ma garanaysaa sababta aad shaqo u heli laadahay ka hor inta aanad ogaanin sida shaqo loo helo waxaa muhiim ah inaad ogaato waxyaabaha kaa hortaagan inaad shaqo hesho kuwan soo socda waa qaar ka mid ah sababaha ay suurtagalka tahay ee laga yaabo inaanad shaqo u helin namber 1 shaqo la'aan aad u badan oo waddanka ka jirta taasina waa sababta ay kuugu adag tahay inaad shaqo hesho namber 2 adiga oo lahayn xirfadihii daruuriga ahaa ma lihid xirfadihii loo baahnaa si aad u hesho shaqada aad rabto ma garanaysid naftaada sida loo soo bandhigo haddii xirfadaada daddhexgalku ay aad u hoosayso ama xirfadaada waraysiga shaqadu aad u hoosayso waxaa laga yaabaa inaad dhib kala kulanto inaad shaqo kugu habboon hesho inkastoo laga yaababa inaad tayooyinkii iyo xirfadihii loo baahnaa aad leedahay haddana dhibaatada ku haysataa waxay tahay inaanad garanayn sida xirfadahaaga iyo tayooyinkaaga loo iibgeeyo looguna soo bandhigo dadka kale inta haddaynu kaga nimaadno waxyaabaha kaa hortaagan inaad shaqo hesho waxaynu gudageli doonaa waxyaabaha kaa caawinaya inaad shaqo hesho namber 1 ha aqbalin inaad bilaa shaqo sii ahaato waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad samayso si aad shaqo u hesho waa inaanad aqbalin inaad bilaa camal sii ahaato waa inaad shaqo ka dhigataa sidii aad shaqo u heli lahayd waa inaad dadaalkaaga fikirkaaga iyo kartidaadaba aad ku bixisaa sidii aad shaqo u heli lahayd hays odhan waddanka shaqa kama jirto kadibna ha iska fadhiisan si ayna kuu dhaafin fursadaha shaqo ee soo baxaa namber 2 xidhiidho badan samayso waa inaad lahaataa dad badan oo aad istaqaanaan qaar iyagu shaqeeya islamarkaana suuqii iyo goobihii shaqada jooga taasi waxay kaa caawinaysaa inay kuu soo sheegaan fursadaha shaqo ee soo baxa asxaabtaadana ogeysii inaad bilaa shaqo tahay mararka qaarna iyaga si bilaasha ula shaqee haddii ay kuu suurtogelayso si aad khibrad uga hesho islamarkaana aad dad kale isu sii barataan sababtoo ah inta ugu badan shaqooyinka waxaa la xayeysiiyaa oo keliya 30% 70% kalena waxaa loo qaataa si hoose taasina waa sababta ay muhiimka u tahay inaad horumariso xirfadaada daddhexgalka iyo inay asxaabtaadu badnaato namber 3 baro xirfado kala duwan inaad dadka kale ka duwanaataa kana soo dhex baxdaa waa wax aad u fudud waxaad barataa oo keliya xirfado ka badan xirfadaha kayrka ay yaqaanaan tallaabo kasta oo yar oo aad qaadaa waxay kaa sii horumarinaysaa oo ay kaa duwaysaa kaana soo dhex saaraysaa dadka kale waxayna keenaysaa inaad si fudud shaqo u hesho namber 4 shaqada ku raadi xirfado kala duwan si ay u badnaato fursadda aad shaqo ku helaysaa waa inaad ku raadisaa dhowr xirfadood sida tusaale ahaan inaad taqaano xirfadda dirawalnimada xisaabaadka ku shaqaynta kombiyuutarka marketinka iyo kuwo kale oo lamid ah kadibna kolba tii kuu soo baxda ayaad ku shaqaynaysaa waxaanad noqonaysaa qof aan inta badan shaqo waayin ee kolba xirfad gaara ku shaqeeya namber 5 marka hore baro xirfadaha adag ama takhasuska u baahan islamarkaana ay yar yihiin dadka ka shaqeeya taasina waxay qayb muhiima ka qaadanaysaa inaanad marnaba shaqo la'aan noqonin waxa kale oo ay keenaysaa inaad dhaqaale aad u sarreeya ku shaqayso oo dakhliga ku soo gelaya uu bato sababtoo ah dadka badankoodu waxay bartaan xirfadaha fudud islamarkaana ay dad badani garanayaan laakiin adigu haddii aad barato xirfadaha adag waxa ay keenaysaa inaad mar walba fursadda shaqo hesho oo aanay jirin cid kugula tartantaa haddaba markaad xirfad baranayso waa inaad mar walba barataa islamarkaana aad ku dadaashaa xirfadaha adag ee wakhtiga badan iyo fikirka badan iyo dadaalka badan u baahan fadlan aragtidaada nagula wadaag qaybta hoose ee kommentiga kana mid noqo asxaabta ku xidhan maamuusa miidiya ee ka faa'iidaysta xogaha aadka u muhiimka ah ee aan soo geliyo barteenna maamuusa miidiya